arrinta iyada madaxweynaha waajib ka saarna waajib qaran isagaana ahayd wax ka bedelkeeda wax ka qabashadeeda isaga lahaa si yaro gaaban ayuu madaxweynuhu ugu soo jawaabay qoraal kooban oo hal page ka kooban qoraalkaas oo oranayay in madaxweynuhu uu daadafeeyay codsigii wadani taa madaxweynuhu uu ku godseegay waxa sii raacday talaabada aad sheegaysay commissionka iyo xisbiyada inuu kula kulmay oo uu leeyahay waa la qabanaya taa madaxweynaha waxaan qabaa arrinta xisbiyadu waa arrin sahlan waxa weeye waa 7 qof oo kalsoonidii kala noqonay oo la bedelo waliba waxaan idin cadeynaya oo muhiim ah inaad ogaataan waxaan codsanay maaha 7 kaliya in la bedelo maaha 7 marka la bedelo in ay yimaadaan 9 xubnood oo xisbi waliba uu 3 leeyahay oo si equal loo leeyahay doorashada sidaas uma ku galin anagu sidaan ku galin istaawi doorasho la'aanta ay dhici kartaana dalka ma jirto runtan idin sheegaya dadana noogu jira dibudhigis ama ka tagis golo deegaan iyo baarlaman sii jooga ma jirto intuba hadda kulmiye u badayin danta waxay noogu jirtaa in doorasho qabsanto la bedelo baarlamanka fadhiidka ah la bedelo golayaashan deegaanka fadhiidka ah ee kharibay dalka ayay danta qaranka inoogu jirtaa taasaanu qabnaa gudoomiye Faysalna nasiib darro wuxuu ku caanbaxay inaanu noqon xisbi u fakara aragtiisa gaarka ah sheega mar walba xukuumadda joogta garab ku saara berigii horena dhibka uu hayay ee udub jirtay haddana wuxuu hayaa intii kulmiye uu jirayna sidaas oo kale xaga kulmiye buu ahaa iminkana kulmiye uu yahay marka annagu waxaanu haysanaa fikrada noocaasa ee aanu xisbi mucaaradi ku cabiri karayn waxa uu isagu doonayo waxa uu diidayo inay dhibaato ku tahay geed socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland geesta kalena siyaasi Cabdilaahi Dahab ayaa ka hadlay eedeymo Mujaahid Cali Yuusuf Cali Gurey oo ka mid ah xisbiga talada Soomaaliland hayee kulmiye u jeediyay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Abdilaahi Ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani kadib markii uu dhawaan sheegay in madaxweynaha Soomaaliland ay u gudbiyeen warqad ay kaga codsanayaan in la kala diro gudida doorashooyinka Mr. Dahab oo marka la arintaasi ka hadlaya ayaa wuxuu yiri eedamahaas waa eedama raqiisa waxa weeye cali iyo rag la midka ah ay difaacay madaxweynaha iyo oraahdiisa ah doorashada waa la gelayaa cidna loo joojin maayo xukuumadani heshiis bay soo gashay oo ay la soo gashay beesha dhulbahante heshiiska Arboges waxa heshiiska ka mid ah in la kordhin doono xubnaha commissionka oo 9 laga dhigi doono waa ka mid waxyaalaha aanu leenahay hal la qabta ayay ka mid tahay arrintan ragga isku meesha ay ku jawaabayaan mar qura ay ku dhawaaqeen in wadan